Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhow daawada magacaygu waa Cabdilaahi Cismaan. Waxa aan rabaa inaan kaga soo gudbiyo cashar kale oo grammar ah. Waxaan soo dhiganay grammarka noun, sidoo kale waxaan soo dhiganay pronoun. Pronoun-kaynu qayb u qaybnay, personal pronoun waan soo dhamaynay. Waxa aan maanta bilaabanaa demonstrative pronoun. Demonstrative pronounsku waa magacyaalada tilmaamaha inoo tilmaama kan, ka, kuwa, kuwaas oo kale. Kuwa demonstrative pronoun magacyaalada tilmaamuhu are used waxaa loo isticmaalaa for pointing out things inay shay inoo tilmaamaan. The words kelmadaha this kani, that kaasi, these kuwani, and those iyo kuwaasi are demonstrative pronoun magacyaalada wax inoo tilmaama ama magacyaalada tilmaamaha weeyaan. Demonstrative pronoun are used waxaa loo isticmaalaa for pointing out things inaynu shayada ku tilmaansano. The words kelmadaha this kan, that kaasi, these kuwani, and those iyo kuwaasi are demonstrative pronoun waa magacyaalada wax inoo tilmaama. Tusaale ahaan, this is a teacher, kani waa macallin. This taas maxay noo sheegaysaa inuu macallinku mid inoo dhow yahay. This kanidin waxay noo sheegaysaa waa demonstrative pronoun waxbaynu ku tilmaamanaa. Kaasi waa maxay? Macallin kaas weeyaan, waad ku tilmaamaysaa kaasi. That kaasi is my mother's car, waa baabuurkii hooyaday. Taas waxay noo sheegaysaa kaasi, taas waxay noo sheegaysaa inuu shaygay noo tilmaamaysaa oo far iyo waxaba wada socda. Farta in lagu fiiqaba suuragala oo kaasi oo farta inta lagu fiiqo lagu dhahdo waa baabuurkii hooyaday. This kuwani arbanis waa qalimo, waa jamac tani. This iyo those iyo jamac weeyaan. This iyo that labadaasna waa singular oo waa keli. This kuwani arbanis waa qalimaan. Those kuwaasi are stars waa xidigo. Eeg haddaba labadaas sare waxay ahaayeen singular, laakiin labadan dambe waa plural oo waa jamac. This iyadu waa singular waana shay ku dhow, waa keli, waana shay ku dhow. That waa singular oo waa keli, waana shay ka fog. This waa plural ama jamac, waana shay ku dhow. Those waa jamac laakiin waa shay ka fog oo kuwaasi. Ka gudubno. Haddaba wuxuu ku yidhi use this and this when you are talking about things near you. Waxaad u isticmaalaysaa this iyo this kani iyo kuwani markaad ka hadlayso shay adiga ku dhow. Use that and those when you are talking about things farther away. Waxaad u isticmaashaa that oo kaasa iyo kuwa oo those markaad ka hadlayso shay adiga ka fog. Aynu ka gudubnay interrogative pronoun baan u gudbanaa. Magacyaalada weydiimaha ama magacyaal weydiimeed. Interrogative pronouns are used waxaa loo isticmaalaa to ask a question in lagu weydiiyo ama inaad ku weydiiso su'aal. The words kelmadaha who, whose, what, which and whom are interrogative pronouns waa magacyaalada su'aalaha ama weydiimaha. Tusaale ahaan, who is mom talking to? Kuma ayaa hooyo la hadlaysaa? Whose is this book? Kuma leh buugan? What is your brother's name? Waa maxay magaca walaalkaa? Which is the biggest animal? Waa kii xayawaanka ugu weyn? Haddaynu dib u soo noqdo intaa hore which, what, whose, who intaas waxay su'aal bay ka dhigeen. Hadda ku dhahdo kuma leh waa maxay iyo waa kee, intaas kale in moogtahay. Intaasiba waa de su'aal. Haddaan waa kuma ku dhahdo waa de su'aal oo su'aal bay u taagan tahay.
marka waa magacyaaladii su'aalaha intanina aan ka gudubno relative pronouns. magacyaalada wax xidhiidhiya ama wax isku xidha weeyaan kuwani. relative pronouns iyaguna waa who, whom, which, whose iyo that. tusaale ahaan labadaas sentence imika eeg. I am the boy waxaan ahay inankii. I broke waxaan kala jabiyay the window daaqada. We can join waynu isku xidhanaa these two sentences labadan jumladood and say waxaan odhananaa I am the boy waxaan ahay inankii. Who kii broke the window daaqada kala jabiyay. Who way isku xidhay because it is a relative pronoun. marka relative pronounka who waxa isku xidhay labadaas sentence waxay gashay halkii ayda. Who haddaba aynu who bal iyadana eegno. waxay u istaagaysaa iyadu subject person, qofkii wax sameeyey oo subjectkiia. oo imika maxay who taagantahay halkan? waxaan ahay inankii waxa aan kala jabiyey daaqad soo maaha. I am the boy waxaan ahay inankii. Who kii markaa waxay taagantahay kaa wax sameeyey kii. waxaan ahay inankii baan ku idhi. waxaan ahay inankii kii sameeyey sidaa iyo sidaa. markaa waxay u taagan tahay subject person kii wax sameeyey ay u taagan tahay. I am the man waxaan ahay inankii ninkii. I served you yesterday waxaan ku adeegay adi shalay. I am the man waxaan ahay ninkii. Who kii served you yesterday adiga shalay ku adeegay. markaa halkaa whoda soo kala dhex gashay waxay that is a teacher kaasi waa macalinkii. macalinkaas aad sheegtayba. He isagu teaches me English wuxuu baraa Englishka. waynu isku xidhan haddaba baleeg. that kaasi is a teacher waa macalinkii. Who kii teaches me aniga i barayay English ingiriishiga ama luqada ingiriishka.